Saraakiil ka tirsan maamulka Puntland ayaa isku dhiibay ciidamada Somaliland ee gobolka Sool sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cadnaan Kaabuur. iyadoo dhaqdhaqaaqa ciidan uu ka taagnaa muddooyinkii dambe deegaanka Tukarraq iyo sidoo kale tuulooyin hoostaga ayna sii xoogaysanayeen xiisada dagaal ee u dhaxaysa maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa wararkii ugu dambeeyay ku waramayaan in deegaano ka tirsan maamulka Puntland ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa Somaliland oo aagaasi muddooyinkii dambe ka waday dhaqdhaqaaq ciidan. Wararka ayaa sheegay in halkaasi ay kala jirto kala xulashada maayarada Somaliland iyo Puntland oo kala magacaabay deegaanada ku tirsan Tukarraq waxaana sidoo kale ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan gobolka Sool ay idaacadda Simba u sheegeen in shakhsiyaadka doonaya inay isku dhiibaan dhanka Somaliland ay sheegayaan in uu ka mid yahay taliyaha qaybta booliska Puntland ee gobolka Sool Aadan Forten iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Boocame kadib markii dalabyo kala duwan uu kaga yimid dhanka Somaliland taasina ay sababi karto in dhankooda ay isku dhiibeen. Waxaana maanta guriga deegaanka iyo sidoo kale kan shirarka golaha deegaanka Boocame lagu arkayay muddo dheer kadib calanka Somaliland oo ka dulbabanaya taasina ay dhabarjab ku noqon karto maamulka Puntland oo aanan ka warqabin arrintaasi. Buuq xoogan oo ka dhashay calankaasi laga suray halkaasi ayaa waxaa lagu warmayaa in shacabka ku dhaqan halkaasi ay ka sameynayaan ugu dambeyntiina khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay sida Simba ay wararka ku heshay. ila dadka deegaanka ayaa sidoo kale idaacadda Simba u sheegay in taliya Forten iyo maayir ku-xigeenka degmada Boocame iyaguna ay ahayeen maskaxda ka dambeysay qorshahaasi iyagoona xilligan wajahaya sida ay sheegeen in ay kusii wajahan yihiin magaalada Hargeysa oo xilal kala duwan halkaasi loogu magacaabay. Taliyaha qaybta booliska Puntland ee gobolka Sool Aadan Forten ayaa laga yaabaa in loo magacaabo taliyaha ciidamada booliska Somaliland ee deegaanka Tukarraq halka wararka qaarkood ay sheegayaan inuu isagu u ololeynayo in shakhsi kale oo ay isku garab yihiin oo arrinkaasi loo magacaabo maadaama maayarka degmada Tukarraq uu madaxweynaha maamulka Somaliland ka dhigay shakhsi ay si aad isugu dhow yihiin. Marka laga yimaado xiisada dagaal ee ka dhex taagan Somaliland iyo Puntland ayaa waxaa jira olole xoogan oo labada dhinac midba midka kale uu doonayo in uu ku hanto deegaanadaasi waxaana xusid mudan deegaanka Boocame ay u jirto caasimada Puntland ee Garowe 60 kiiloomitir oo kaliya.